qof wali kastaba wuu baahan yahay nabadda qiimeeya quraanjaduna kama maarantee nabadda qiimeeya qadirkiinka wadayaba oo nabadda qiimeeya shaydaanku yuu idin qaldine nabadda qiimeeya ilaahiyo rasuulka baaqiro nabadda qiimeeyo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دقيستيال ميل كستا وعدكي قد كسو غاريو كنا سو دhowaada barnaamij suugaaneedkii idinka iman jiray rugta ururinta suugaanta iyo suugaalka ee Qalinsoor toddobaadkana barnaamijku waxa uu idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaana mar kale aanu la kulanay isla markaana halkan aanu kaga qaban doonaa qaar kamid ah suugaantiisa abwaanka weyn sheekha abwaan Xasan Sheekh Muuse Siyaarag hore ayaa barnaamijyo aan ka qabanay halkan aad uga maqasheen baqad Xasan mar kale iyo kulan wacan mawlid aad baan u dhawahay mawlidada waa ma sha Allah salaamaya aad baan u dhawahay waan fiicanahay mar labaad baan nasiib u yeelanay inaynu kulanno markana insha Allah taala bal hada in yaro kale ayaynu ku qaban doonaa halkan tixgabaya oo hal ku dhigeeda la yiraahdo nabadda qiimeeya ayaa kamid ah maasooyinka bagabayada halkan ugu diyaarsan maanta nabadda qiimeeya kulli nabad bay ku saabsan tahay iyo qiimaha ay leedahay in bal hada gabayada sadad soo waato horta wax weeye mawlidow marka hadee magac la soo qaato nabadda qiimeeya ay tahay habal ma nabadda qiimeyn kartaa hadii la iibah loo soo taago goyn kartaa inaan jirin laakiin deenagu yaani yaribatu saalum bin u jeednaa oo hadalkaas sida ku hagaagsan waa sida aan mar dadka waraxda u oran karnaa sidaas gabaygaas waa jira insha Allah waan soo qaban doonaa waqti dhoweedna waan tirinay marka xaaladka qiimeynay dalka ma ka jira hadi jira waa sidee nabaddu mar walba waa wax naftu ay u baahan tahay meel ay ku soo afkoodaan jirin baahideedu inta la nool yahayna waa loo baahan yahay oo kulli magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala assalaam baakum ayaba assalaam oo kamid yahay in way ana soo bilown qormadiya man yaalo walagu qaboobaye qoyar baad ku raaxaysataayod ku qanacdaye qudka wax ku tara markaan qaxar ku taagnayne qalalaase meeshu ka jiro lagu qaadan waaye qayla iyo buuq waa xun yahay lala qamaamaaye qudkaan la soo guran karayn qof hadduu jiro qataru hadday badan yihiin waad isqaarisaaye markaasaad khasaariyo gaashaaqaxiyo leleele oo dameer quflehiyo qanka rarataaye qasabaad worodaado qurux loo weyne qawliyo kuwee tugaha waad u qalantaaye qarqarada intay ka galaan ka qaraabsadee qurbaab iyo wax kaad laatay iyo qubad ma waayaane qadli iyo waxaad geysataa qodobo naareede qareen iyo waxaad waayeysaa qaar ku hoyn jiraye qolqolkiyo waxaad seexataa meel qayood badane qulubiyo shakaa kugu dhaco waad qayirantaye markaasaad sidii qori engegayu qalalaataye oo aad qalaafaha lugaha qacisku siisaaye qanja bararka iyo kaarka waad la qarqarhaysaaye qacqac iyo colaad lama dalbo way qadhaadhahaye qaynuunka iyo diintu way wada khilaafeene mar haddaan jahaad loo qasdiyin gaala qurunleyda qur-aankiiyo xadiiska ka digay kii qabyaaladahe
qusuusida markii aad disheed qorta kala goyso qusuusida markii aad disheed qorta kala goyso hadhowtaad qabuyaysigiiyo qirada u dhimane oo aad sidii ruux qandhale sii qumbacataaye oo aad waxaad qabatay iyo qadafkii eegtaaye oo aad qubuuraha daydacaynka loo qodaye nin wacani qorshayntiyo tashiga uu qadeeriyaye qawsaar aqoon gaabaro qoman badane xaajana waxau qaaya badantii lagu qiroe qalaf iyo ismeermeerin waa laga qatoobaye qalqaalig iyo shaydaan kuwa qaar walaalaahe hadba meel qabuu lagu degay qarafku tuuraane qosolkoodu wuxuu saaran yahay qoonsi iyo maage qoobkooda meeshay dhigaan ma laha qayraade qallaaciyo fijaasaa gasho way qarriibantaaye qorjajabada lama aaminiyo geed quwaaxyadaaye qarandiduna way jiidhaysaa soo qadhaadhidaye qowlkana midkii beena baan qadan ku dhehnayne qaraarkaan wax beenaynin waa la isla qaataaye nimanyow qalloo lama hadleen nabadda qiimeeya qoyskaga lama baabaashee nabadda qiimeeya qolka aad fadhido lama gubee nabadda qiimeeya qiiqiyo dabla iskuma shidee nabadda qiimeeyo qalbi iyo garaad yeesho nabadda qiimeeya idinkuwa qiyaasaha dhigto nabadda qiimeeya qaraab iyo xigtaba waa jirtaa nabadda qiimeeya waxa haanta lama quursadee nabadda qiimeeyo xaajada balkana qaada oo nabadda qiimeeya hadba talada qarbaasitee nabadda qiimeeya hadba talada qarbaasitee nabadda qiimeeya qof wali kastaaba wou baahanyee nabadda qiimeeya quraanjaduna kama maarantee nabadda qiimeeya qadirkiinka wadayaba oo nabadda qiimeeya shayddaankuyo idin qaldine nabadda qiimeeya ilaahiyo rasuulkaba qiro nabadda qiimeeyo ee qurbaxda ma soo noqon kartee nabadda qiimeeya wixii kaleba waa qarayaryee nabadda qiimeeya qafiif iyo sahal kuma gashee nabadda qiimeeya qabi iyo shuruud kuma gashee nabadda qiimeeya idinkuba qalbiga fiiriyo nabadda qiimeeya waay nabadda qiimeeya runtii gabay wacdi waana iyo wax sheeg fara badan xambaarsan buu ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha inagu anfaco runtiina qiimaha nabaddu ay leedahay dee in badan baa diinteena subane ay nagala hadashay bal hadda xasanow waxaanu u degi doonaa tixda ugu dambaysa oo iyaduna ah maanso ku saabsanayd ammaanta nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi bal hadda tixdaas ayaynu kusoo gabagabaynaa barnaamijka doorkan waayahay waxaan bilaabi doonaa tixdaas jiiftada
waxaan idhi sanku neefle oo idil si kastay ahaataba kii ugu sarreeyeen cidna lala simaynow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow suurada qur-aan buu rabbi kugu saxeexo sumad iyo tilmaan iyo sawrac iyo garashiyo sami kaaga yeele suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow kii samay iyo khayraad sacaade iyo liibaan saldhig looga dhigayow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow meelaan sadcaal iyo socod cidi ku tegi karin sahalkii u gaadhee saqda dhehen habeenkii maray unku seexdeen bureeqada la saaree dhulka ay la socotee ambiyada safkeedii salaaddii ka bixiyee loo dhigay sallaankee lala aaday samadee ilaahay salaamee siyaado iyo khayr iyo soo faray salaadee sikin waxaan ka weynayn iyadoy sidii tahay sariirtuu ka toosiyo salligiisa gaadhow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow wuxuu saatir soo faray subaxiiba sheegow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow gaaladii sillooneyd markii ay siyaaxeen ama ay sannaadheen kii aan salsalinee si cad wax ugu sheegow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow saaxiibkii koowaad kii uu sidiiqee sawdkiisa qaatee sarsarka iska taagow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow suuqii daa'ifuu tegey kii lagu salcaanshee sabi iyo addoon iyo siqoorka iyo dumarkii lagu soo sallidaye sarta dhiiggu gaadhee wax kaluu sugaayiyo samirka iska qaatee si xun loogu galayow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow maka soodinteedii wixii sanam ka taagnaa sawirradii la caabuday subaxkii burburiyow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow sanaadiiqda kibirtiyo gaalada sawaabka ah kii seefu qaatee seedihiiyo lugihiyo surka badi ka gooyow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow iyaduu sabaan dhacay cirkoon sagal daruureed ama wadan saxaabkii kii saatirkii iyo allihii su-aashee sacabada u dhigayuu saacaddiiba hooree dhulka geeda subagiyo saac nooga baxayow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow siraadkii baxayow siinaddii adduunkow samsamkaan cabbaynow naftu kay ku sabirtow suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow salligaagu quudiyo waa soor macaano naftu kama samraysee suubane rasuulkii ilaahay sifeeyow sala allahu nebiyow sala allahu nebiyow calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa in maaragtay uu inaga yeelo intii raacda ee safkiisa noqota maalinta qiyaamana xawdkiisa uu ka waraabiyo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi abwaan xasan sheekh muuse si arag aad iyo aad baad mahadsantahay toddobaadkan intaas ayaynu barnaamij kusoo afmeeraynaa geestaydana waa anigoo mawlid maxamed dawaaya iyo dhammaanba bahweynta khalisoor oo idinkaga tegaya saasiyo nabadgelyo